السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي la soo dhawaada ku soo dhawaada muuqaal kale. Muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay isla suuqa Alibaba laakiin mowduuca maanta uu ka duwan yahay kii hore. Kii hore wuxuu ahaa aan maalin hore soo geliyey. Wuxuu ahaa sida alaab ama markaad rabtid inaad alaab iibsatid dadka aad ka iibsanaysa alaabta sida la isaga eego. yacni supplier wanaagsan sida looga raadsado. Hadda marka muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay aan ma rabaa inaan idinku tuso sida loogu raadsado shipping agency wanaagsan oo lagu kalsoonaan kara. Fadlan haddii ay tahay marka kugu horeysay aad na soo booqato aadna tahay qof daneynaya in online-ka oo fursadaha online-ka ka faa'iidaysto online marketing-ka nagu soo biir subscribe saaro. Muuqaalkan maanta waxaan rabaa inaan idinku tuso sida ciwaanka ku aragtaan sida shipping agency looga raadsado Alibaba shipping agency wanaagsan oo marka shipping agency waa maxay? Mathalan alaab ayaa doonaysaa inaad Alibaba ka gadatid laakiin supplier-ka marka aad wada hadashaan waxaa laga yaabaa inuu ku yiraahdo alaabtii Soomaali uma soo dhiibi kara ee shipping agency maastaa. Marka ama alaabtii markaaseeto oo markuu Soomaali u soo dhiibayna qiimo saaido qaali inay tahay laga yaabaa. Marka shipping agency wuxuu ku qabanayaa shipping agency waa qofka alaabta marka supplier-ka aad ka gadatid uu kugu geynayo kadib qofkaas alaabtii uu ku qabanayaa haddii aad doonaysid uu ku fiirinayo oo ku eegayo alaabtu ka jarjaranayaa si hodhow intaysan China ka soo bixin alaabta lagugu fiiriyo oo maxay ahayd lagaaga hubiyo in alaabtii aad gadatay ay tahay. Markiis kadibna uu ku soo dhoofiyo alaabta kadibna uu Soomaaliya ku keeno. Marka shipping agency sidaas ayaa la yiraahdaa. Kaliya Soomaali maahan laakiin meel kasta adduunka joogtid waad ka raadsan kartaa. Marka shipping agency ama logistic waxaa loo yaqaanaa waxaa lagu raadsadaa marka hore halkaas qaybta search-ka waad ka raadin kartaa. qayb kale aydan waxaa jirto halkan laga raadin karo oo la yiraahdo logistic service laakiin ana waxaan jeclaa markasta inaan qaybta search-ka aan ka raadiyo sababtoo halka aan doonayo ee straight igu soo bixiyso. Mathalan waxaan doonayaa in alaab laga soo qaado China laga keeno Soomaaliya. Marka agenciyada ama shipping agenciyada ka soo qaado alaabaha China to Soomaaliya ayaan raadinayaa anigoo dhahaya China to Somalia logistic or shipping agency dheh China to Somalia shipping agency waayahay waa raadinaynaa gareynayna. Okay waxaan raadinaynaa kuwa China to Somalia straight ay yihiin like this one waxaa waaye midkan oo kale air freight from China to us Somalia. Okay kasoo waa raadinaynaa. Markaysaan kugu soo baxaan mathalan midka aad doonaysay ayaad ka heshay oo Soomaali alaabaha keena. Waxaad marka ka fiirisaa muddada uu ku soo jiray in verified uu yahay labadaas waa muhiim. Marka hadda horta mid aan soo qabsano aan isla raadino. Okay cheap air freight shipping rates China to Mogadishu Somalia. Okay waa cheap air freight shipping rate China to Mogadishu Somalia logistic forwarder waxay alaabaha ka soo qaadi karaan Konzo TK Cargo Service meeshaas ay ka howlgalaan. Okay
waad aragtaan 48 days ayay alaabta ku keenayaan. waxa ugu yar markaaseeto ay soo qaadaanna waa 100 kiilo. sawirka markaan ku dhufto waa kan alaabta mid minimum waa inta ugu yar ee alaab ka soo qaadayaan 100 kg haddii alaabtaada tahay iyo ka badan ku soo qaadi karaan, balse haddii 100 kg ka yar tahay umaleemayo kaas minimum ay ku soo qoreen. sidoo kale waa diyaarad ma ahan bad waxaa laga yaabaa inay waqti qaadato, laakiin diyaaradda waa maalmo gudaheeda kugu imaanaysaa. qiimahan intay kusii qoreen waxay yidhaahdeen 100 ilaa 300 kiilo calaa kiiladii waxay kugu qaadayaan $8 is 8.8 $8 iyo 8 senti camal ay kugu qaadayaan. 300 kilogram ilaa 400 kilogram waxay kugu qaadayaan $8.1 ay calaa kiilada kugu qaadayaan. haddii alaabtaadu ka badan tahay ilaa 500 kilogram waxay kugu qaadayaan $7.3 calaa kiiladii. waxay kaloo ku raaciyeen chat to get discount nala soo hadal si aad discount u heshid. halkaas chat now-ga ayaad ku dhufanaysaa, kadibna waa la hadlaysaa oo waxaad leedahay intaas ayaan doonayaa. waayahay sawirka xiga waa kana transit time xilliyada oo soo bixitaankooda. flight date maalin kasta ayaa alaab soo qaadan, waa daily. okay, transit time-kana waqtiga uu alaabta ay wadada kusoo jireysana waa 4 maalin ilaa 8 maalin. so waa maasha Allah, waa aad bay u maxeedii waqti aad u gaaban waaye. waxay ku leeyihiin save money by combine your goods. tiimkoodan waa kana ay soo dhigeen. qaybtan hadda chat now-ga hadda kuwaan maadaama aan ku qanacnay waxay say usoo qorteen oo idil, waxaan rabanaa inaan eegno bal muddada ay kusoo jireen. horta trade assurance waa ay leeyihiin oo markii lacag markaas ayaga ku diraysid oo alaabta qiimihii ay kugu soo qaadayaan ku heshiisan aad lacagta u diraysid. halkaas hadday leeyihiin waxaad lacagtaad Alibaba ku dirsan kartaa oo Alibaba lacagta on hold way hayn karaan. haddii doon xitaa qayb ka siiyaan, laakiin Alibaba lacagta way haynaysaa si alaabtaada markay kusoo gaarto ee Alibaba markaaseeto haddii ay agency lacagta ugu fasaxdo. waayahay profile-koodan fiirina. okay, profile-kooda verified maahan, balse 5 sano ay kusoo jireen. muhiimadda verified-ka qof kasta uu gadan karaa waa inaad la socotaan midaas, taasoo ah xataa qof 1 sano kusoo jiray verified-ka uu gadan karaa. balse waxaa muhiim ah qofkan inuu in muddo ah kusoo jiray. on time delivery response time-koodana waa 12 hours. xoogaa response time-kooda ayaa xoogaa aad u yar liita oo hore dadka ugama soo jawaabaan. halkaas ayaa laga eegaa response time. waxaa la fiican qof markaad la hadashid daqiiqada kadib haddana hore kaa la soo hadlayo, markaas adigana qofka markuu kuu soo jawaabo xoogaa kalsooni yeelan kartaa. marka response time-kooda waa 12 hours. marka xoogaa aad buu u yar gaaban yahay. haddii aad doonaysid in la xiriirtin qaybta chat-ka aad ku dhufan kartaa. hadda matala haddaan qof kala raadino, midkan wuxuu yiri professional ee cargo shipping to Somalia verified uu yahay. response rate-koodana waa 4 hours. qofkan markaan doonayna inaan la hadlo chat now ayaan leeyahay, kadibna halkan ayaan kala xiriirayaa, taasaan u dirayaa, kadibna hi aan leeyahay. waxa markaas aad doonaysid shipping markaas to Somalia aad doonaysid waad kala xiriiraysaa, kadibna qiimaha ayaad ku wada hadlaysaan. مثلا qofka supplier-ka alaabta ka iibsatay, qofka supplier marka alaabta ka iibsatay waxa qofkan agency-gan qofkan address ayuu ku siinayaa markaad wada hadashaan oo wuxuu ku weydiinayaa مثلا wuxuu ku leeyahay ma haysta supplier, waxa leedahay haa, kadibna address-kooda ayuu ku siinayaa. kadibna address-ka qaadaysa qofkii supplier-ka alaabta ka iibsanaysay ayaad u diraysaa, kadibna qofka supplier-ka wuxuu sameynayaa alaabtii wuxuu ku geynayaa meeshii shipping agency-gii
ayuu kuu geenayaa addresskooda. Kadib shipping agency way kula soo hadleen, waxay ku leeyihiin alaab magacaaga ku socota ayaa noo timid, kuu jeeg gareynaa mise sidan kugu soo package gareynaa kuu soo dirnaa. Haddii markaas aad doonaysid consolidation baa la yiraahdaa. Consolidation haddaad doonaysid alaabta markaas lagu furo, lagu eego alaabta aad gadatay inay tahay in kala, waxaad samaynaysaa waa lagu eegayaa. Markaa kadib alaabta hadday noqotay midii aad doonaysay, kadib way kuu soo qaadayaan. Laakiin intaysan kuu soo qaadin, order link oo kale meeshan kugu soo samaynayaan oo waad ku dhufanaysaa. Kadibna lacagta halkan Alibaba ayaad ku bixinaysaa. Marka qofkii markaas hadee fahmi waayo insha Allah wuu la soo xiriiri karaa. Inta ka dhiman diyaar ayaan u ahay inaan ka caawiyo insha Allah. Waa mahadsantihiin asxaabta.